magayaro aad iyo aad u mahadsan tahay walaal waxa igu dhaliyay waxaan ogahay arrintan inay saameyn ku yeelan karto Soomaalida waddanka Belgium degan oo dhan markaas BBC waa meesha ugu weyn ee dadka Soomaalidu ay ku wada xiran yihiin ay adduunka wararkooda kala socdaan markaas arrimahana wiil Soomaaliya geystay marka anoo magaca Soomaalida waddanka Belgium ku hadlaya aad aan u cambaarayna dhibaatada ka dhacday waddankayaga marka taas ayuu ka liftay inaan ka hadlo Bashir wadamo badan ayay waxaan oo kale ka dhaceen marka maxay middan si gaar ah adiga kugu taabatay waxay igu taabatay arrintani horta waa arrin cusub oo waddanka Belgium hore ugama dhicin waxaan igu taabatay dee anigu waddanada kale kama deganin waddankan waan deganahay waanan u ordayo waddan wax aad noogu muhiima waaye maxaa yeelay waddankeeni ka sokow waa waddan waxbarasho ka helay ammaan ka helay guryo ka helay nabad ka helay markaas waa dee nabadda iyo wanaagga inaan wala ilaashano waa wax kulligeen waajibna saaran qofka dhibaatada geystana waa wiil Soomaali ah waddanka dad badan oo Soomaali inay degan yihiin markaas waa dee waddankeeni ka sokow waa waddankayagii marka waddanka inaan wala ilaashano waa waajibna saaran anaga wax saameyna marka ma idinku yeeshay weerarkan la sheegay inuu geystay wiilka Soomaaliga may process-kana waa wax cusub waa habeen hore dhacday markaas aad looga hadlayo magaca Soomaaliya meel walba la soo gelinayo qoraal kasta lagu soo daray inuu qof Soomaali geystay baa dib noogu filan markaas aad iyo aad aan uga xunahay inay hawshan dhacday ma filayseen marka in qof Soomaali ah uu weerar noocaas oo kale geysan doono may wallahi waa arrin la yaab leh nagu noqotay arrin weligeed hore u dhacday ma ahayn waa markii koobaad wax dhibaato oo Soomaalida xaggooda ka socda aan la kulanay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dib dambe u dhacdo marka ma isu tagteen Soomaali ahaan oo arrintan ma ka wada hadasheen maadaama ay idin taabanayso may waddankan community-yaal aad u waaweyn ma degana laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa oon fariin u furaya dadka Soomaalida waddanka Belgium oo degan in la isu yimaado oo la cadeeyo in hawshan aynu aad iyo aad uga soo horjeedno aynu waddankeena tusno waa waajibna saaran weerarkaas ma laga yaabaa inuu horseedo inuu ka dhasho nacayb loo qaado Soomaalida waa laga yaabaayo dee meel kasta magacii Soomaaliya lagu soo qoraya markaas waa laga yaabaa laakiin dad kasta dad fiican dad xun waa laga helaa marka waxay tahay inaynu sida professional aynu ula dhaqano waxan markaas saameyn ku yeelan kartaa la oran karaa laakiin weli wax dhib ahonu sheegan karna maana weli la kulmin Bashir adiga waxaa tahay qof caan ah oo dunida oo dhan laga yaqaan una ordo dalka Belgium-ka marka ma ku furan tahay dowr aad arrimahan oo kale inay mustaqbalka dhacaan uga hortagi kartid oo aad bulshada Soomaalida kala hadli kartid in waxaan oo kale aanay soo laaban ha way furan tahay waana waajib saaran oo dareensanahay miidiyaasha waddanka iyo dadka Soomaalida community-yaashoodii way isu nimaadnaa miidiyaasha waddankana waan ka hadlayo kulba wixii dawlad ahaan waajibka saaran waa in la tuso annagana Soomaali ahaan community ahaan waajibkayga waa inaan ka soo baxno